وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كأني لما بحي المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للدكتور عبد السلام ابن برجس رحمه الله تبارك وتعالى. حلقذني وحلقذي لحيطبنات، وأنا حلقذي أقدم بيسي بإذن الله تبارك وتعالى. waxaanu ka bilaabaynaa laba baab oo ka koobnaan doonaa. baabka koobaad annahyu can iljidaali fi ddiin, baabka kale oo ah altaxdiiru min mujaalasati ahli اlahwaa. labadaa baab baan ku khatimi doonaa in sha allahu tacaala. hal darsi buu noo noqon doonaa in sha allah. annahyu can iljidaali fi ddiin wuxuu baab u yahay reebid la iska reebayo dood lagu doodo fi amri diin, diinka amar arrinkiisa oo lagu doodo. wuxuu yihi mualifku raximah اllah wayanha ahlu الsunnati wاljamacati can اljidaali wاlkhusuumaat jazaaka allah khayr wاlkhusuumaati fi اddiini إذ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وينهى أهل السنة والجماعة waxay reebeen oy dhaleeceen u soo jeediyeen dhaleecayn can iljidaali dooda wاlkhusuumaati muranka fi diini diinka lagu marmo. muranka diinta dhexdiisa allaba weeye. muran loola jeedo in baatilka lagu baabi'iyo, muran loola jeedo shubuhaad baatila in sharciga lagu furo, dood loola jeedo in xaqa la qariyo, iyo dood loola jeedo in xaqa lagu difaaco, xaqana la caddeeyo dariiqo iyo qaab wanaagsan oo edeb la socoto iyo ikhlaas iyo xaq raadis iyo xujada oo dadka loo caddeeyo. taasi way bannaan tahay, bal way bannaan tahay ma ahane xaaladda ay daruuradu wacato waa daruuri. nabiy llaahi ibraahim baa wuxuu la dooday namruud binu kancaan. soo saas ma ahayn? soo qur-aanka suurat lbaqara ilahi nooguma sheegin. وإذ قال إبراهيم muxuu yihi ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. waa la doodaya فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سورة آل عمران. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. jadalka xaqa lagu raadinayo diintana lagu difaacayo ee xumbaarsan adabka iyo akhlaaqda iyo dhaqanka iyo ikhlaaska waa mamduux, waa ammaanan yahay. laakiin midkan hadda hore ee nalooga digayo waa maxay? waa midda shareecada la isku garaacayo ee qur-aanka intii lasoo qaado aayaddan aayadda lagu garaacayo, ee xadiidkan xadiidka lagu garaacayo, ayadoo ujeeddadu ay tahay itibaacu lhawa, ayadoo loo hiilinayo maxay? nafta, ayadoo loo hiilinayo madhab, ayadoo loo hiilinayo xarako, ayadoo loo hiilinayo qadiya min alqadaaya, adduunye lagu gaadhayo, madaxnimo lagu gaadhayo. kulli adiga soo aruuri wax alla wixii xuduudu nafs shayطaanna uu madax u yahay
arrinkaa shareecadeenu way reebtay sideedana waxaad ogaataan siday culammadu dhahaan kalaamu salafi qaliil kalaamu salafi qaliilun salafka hadalkoodu aad buu mar walba u kooban yahay daarto qof aamusan oo afgaaban waa wax wanaagsan laga yaabo inuu doqonnimo la aaminsan yahay laakiin markuu hadlo baa la garanayaa wuxuu la aamusnaa siduu shaacirku yidhi wakam min saamitin laka mucjabin ziyaadatuhu aw naqsuhu fi اtakallumi badanaa nin aamusan laakiin markuu hadlo un baa la garan wuxuu la aamusnaa laakiin man samata naja qofka aamuska badan waa badbaadaya marka salafku hadalkooduna waa yaraa ficilkooduna waa badnaa wa kalaamu lkhalaf dadkii salaf ka dambeeyeyna maxay oo inagoo kalaa maalan hadalkooduna waa badan yahay waxtarkooda iyo nacfigooduna waa yaryahay aad markaa la iskaga ilaaliya qiila waqaala iyo muranka iyo fadhi ku dirirka maanta adduunyada wax walba takhasus baa loo daayey ilaa diintii ma ahani caafimaad markay timaado shaqadan dhakhtar baa iskale lagulama murmo injineernimo markay timaado ninkaasi macluumaadku yaqaano lagulama doodo askarinimo markay noqoto iyo taagtiig caskari ah haddee sargaalka arrintaa yaqaano ee soo bartay lagulama murmo laakiin diintu maanta aabbiyi hooye ma leh agoon waay warkaa meel ka xariiqa shareecada maanta aabbana ma leh hooyana ma leh saa daraaddeed nin walba wadaantiisu darsanaya nin walba wadaantiisu darsanaya kii caamayga ahaa kii culummada ahaa kii dhalinyarada ahaa ee shalay dhashay nin walba anigaa garanaya buu leey waxaan anaa garanaya anaa ka jawaabaya waxaan anigaa fahmaya adigu ma fikranaysa waxaa nin caalim ahoo soomaalida culammadooda kamid ah nin u yimid takfiir buu ahaa markaasuu yihi sheekh kitaabka bukhaariga ii laqbe carabi ahaan carabiga isu kaysaar war soo gaal inaan ahay ma aaminsanid ha waan ogahay inaad gaal tahay waan ogahay laakiin carabigaa umaan raba inaan kaa faa'idaysto laakiin waxa aayaddu xumbaarsan tahay xadiidka anaa garanay meeshaan dhigayo yaa cunug yar sheekhi waa nin dheeroo caalama wey le anig ii laqbe waxba adi kaama geline adna waan ogahay inaad gaal tahay marka jadalka diintu waan ku soconaya jumlada maanta diinta islaamku waa rajo iyo agoon isku darsaday wey waayo qof walbaa doona inuu ka jawaabo ha laga edebsado faa'ido yar baa halkaa kusoo qoray aada cajaa'ib u ah walacala bacd alcisha inaan kelimadaa baraarujino kelimadaa waxay leedahay min mukhtasaraati almawaacidi wa baliigi alqowl hadallada culammadii hore laga soo gaadhay ee aadka u xeel dheer mataqaanaan man lam yataأdab maca allah fawqa alard man lam yataأdab maca allahi fawqa alardi adabahu allahu taxta alard qofkaan ka edebsanin ila allah tabaaraka wa tacaala adduunyada dusheeda qofkaan alle kaga edebsanin dhulka hoostiisa lagu edbin doonaa dhib ma leh munkari nakiir laga bilaabo ilaa qabriga ilaa qiyaamo halkaasaa si fiican lagugu edbin doonaa macalimiin fara fiican ba halkaa jooga man lam yataأdab maca allahi fawqa alardi adabahu allahu taxta alard qofka inuu aada isu ilaaliyo oo diintiisa ilaaliyo waa qodob aada muhiim u ah weyaan wayanha ahlu الsunati wاljamacati can اljidaali wاlkhusuumaati fi اdiini id qad xadara nabiyu salى اllahu alayh wasalam fi dalik nabigu arrintaa waa ka digay fafi صaxiixayni can الnabiyi salى اllahu alayhi waslama qaal iqra'u lqur'aana ma اtalafat calayhi quluubukum qur'aanka waxaad akridaan inta ay quluubtiinu isu dulmayso inta aad wax isla fahmaysaan qur'aanka aqriya qur-aanka aqriya inta ay quluubtiinu isku ogosha waa qiraa'aadkii faida اkhtalaftum haddii aada isku khilaaftaan qur'aankii faqumuu canhu kaba istaaga meesha aayadda intaad macnaheeda isla ogoshihiin qur'aankii aqriya oo ku dhaqma mar hadduu ninkan aayaddan xagga u jiito kanna xagga u jiito
meeshaasi khayr ma yaalle ka kaca maanta qur-aanka see loo galayaa soo harag yaroo lagu fadhiista ma laba wadaad baad arkaysa doodaysa hal aayad ba isku garaacayaan waa labadii wadaad ya maaha hataa caamo maaha ma diidani fahamka anigu aayaddan aan ka fahmay anigoo istinbaadka iyo axkaamta iyo luqadii iyo usuushii iyo aalaadkii naxwadii sarfigii iyo balaagadii wixii istinbaadkan iyo axkaamtii aalaadkii lagula soo baxayo ee istinbaadka lagu soo saaranayo haddaan anu isticmaalayo adigana isticmaalayso waxba la islama waynayo soo saas ma ha waxba la islama waynayo aayaddan fahamkeeda waa la isla gaari waayo qur-aanku luqada carabi kusoo degay soo ma dhibaato ma leh laakiin hawa hadday meesha soo gasho hal aayad ba arkay iyadoo lasku garaacayo qur-aankii baad arkay iyadoo lasku garaacayo aayaddii xadiidka ay arta iyadoo lasku garaacayo waa musiibo cas musiibat lcasr iqra'u lqur'aana ma talafat calayhi quluubukum faida اkhtalaftum haddaad qur-aankii isku jijiidataanoo nin walba uu meel la aado faqumuu canhu fadhigaa ka kaco ka istaaga qur-aankana joojiya meeshaana ku kala taga ilaa inuu yahay maxaa la yidhahdaa munaadaro cilmi ah oo aayaddan la isfahamsiinayo aayaddan caam bay faa'iideysaa maya aayaddan khaas bay faa'iideysaa okay aayaddan hadday caam faa'iideyso asalka caamka asale hadday aayaddan khaas faa'iideyso waxa khaas yeela keen waxa dhibaataa maleda nin baa maalan wuxuu yihi qubuurta oo loo safri karaa nin baa wuxuu yihi dhibaato ma lehe in qubuur loo safro waad sheegtay yani waxa qubuur in loo safro caddaynaya keen lakin saddexda masaajid in loo safri karo laa tushad الrixaalu ila ilى halaaثati masaajida masjidi hada wa masjid اlxaram wa masjid اlaqصى waan garanay dhibaato male si fiicana la isu fahmo waa wax la iska dhaadhicin karo soo ma wa fi lmusnadi wasunan ibn majah wa asluhu fi صaxiixi muslimi can cabdillahi bn camr bn caas ana nabiya salى الlahu alay waslama kharaja wahum yakhtasimuuna fi lqadr ufir saxaabadii buu nabigu kusoo baxay ayagoo ku murmaya qadarka qadarkuna waa abwaabta aan soo marnay aan si boobsiisa kusoo marnay runtii ee mudnayd in wax badan lagu istaago marar badana dadka inta badan ishkaal ka gala qadarka mar alla mar kusoo baxay fakaأnamaa yufqa'u fi wajhi الrumaana min algadb allahu akbar yufqa'u waxaad moodaa nabiga in lagu jeexay oo lagu dhuftay fii wajhihi wejigiisa in lagu dhuftay yufqa in lagu jeexay oo lagu dhuftay fi xab rumaan rumaanka waa baalka la yihahdo maxaan dhanaa waa rumaan xabat rumaan midhahan yare ya af soomaali mu dhanaa rumaan uma dhanaa xabada baalka yare la cuno wey wالzaytuna wالrumana qur-aanka soo ma ha soo ma oo ku kaa rumaanka in waa baalku adag yahay waa xanuun badan yahay in lagaga dhuftay ayaad moodaa isha oo lagaga soo tuuray min algadb caro daraadeed nabigu fiiri ma cadhoon jirin akhlaaq buu alla siiyey wainaka la calaa khuluqin cadiim lakin wuxuu ka cadhooday ma garanaysaa nabiga sala la alay slam shay adag wey nabigu waxa ka cadhaysay waa maxay waa shay adag faqaala wuxuu yihi bihada umirtum abihada umirtum istifhaam iyo calaamatu tacajub saar abihada umirtum war ma kaasaa laydin amray war ma arrinkaasaa laydin amray waa minaad diinta saa ugu doodaan baa lay amray fas'aluu ahla dikri esh in kuntum laa taclamuun wanabiyu xay nabigii baaba jooga sala allahu alay wasalam fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun inamaa shifaau lciyi su'aal jaahilka daawadiisu waa su'aal waxaada garanaynina waxaad dhahdaa tacalam laa adri fain qulta laa adri callamuuka xataa tadri wain qulta laa adri sa'aluuka wain qulta adri sa'aluuka xataa laa tadri tacalam laa adri ma garanayo waa nisf lcilm waxaan ma garanayo macee baa sheekho ya haddaad wax walba dhahdo waan daadshay ama aad dhahdo waa laguu yaqaan ya wax walba adeer laguma yaqaan waan daadshay wax la yidhahdana ma jirto waxaan ma garanaya dheh fain qulta laa adri arday baa tahay callamuuk xataa tadri fadhiiso culamada hor fadhiiso oo lagu baraya wain qulta adri haddaad dhado wax walba waan aqaanaa
sa'aluuka waa lagu weydiinaya xataa laa tadri inta albaabadu kaa soo xidhmaan madaa wax walba yaqaan taa kaga baxa abihada umirtum aw lihada khuliqtum iska daa wax kale ma waxaasa ladiin abuuray tadribuuna alqur'aana bacdahu bibacd u fiirso qur'aanka miyaad qaarkii qaarka kale ku garaacaysaan oo axaadiidti iyo axaadiisi baa laisku garaacay oo axaadiidkaba xadiidan baa qur-aanka lagu garaaci abihada umirtum aw lihada khuliqtum tadribuuna alqur'aana bacdahu bibacd bihada halakat اlumamu qablakum bu nabi sal l slam dooda noocan ee caqiimka ee mandhalayska ah ee aad diinta ku doodaysaan ee aan caqli iyo ikhlaas iyo xikmad midna ku soconin sababkeeda ayaa umamkii naga horreeyay ba lagu halaagay umamkii hore waxa lagu halaagay hadal badni iyo dood bay ahayd wixii lagu halaagay hadal badni iyo dood bay ahayd bal jaa alkhabaru xadiidkana waa lagu iطlaaqaa طabcan bal jaa alkhabaru khabarkii baa yimid biana aljidaala cuquubat min cuquubat اllahi fi اlumma jadalku iyo doodu waa cuquubo iyo ciqaab kamida min cuquubaati illah alla waxyaabaha uu wax ku edbiyo ku qabto fi lumma oo waaba ka daliilkii fiiriba fa fi sunani tirmidiy abu ciisa atirmidiy muhalathu alxarakaat atarmidi wاturmidi wاtirmidi raximah اllah wbn maajah alqazwini raximah اllah min xadiidi abi umamata albahiliy radia allahu tacala canhu qaal qala rasuulu lahi sal ly slam xadiidkan fiiriya xadiid صaxiixa wey ma dala qawm bacda hudan kanuu calayhi ilaa uutu ljadal bal u fiirsada xadiidkan maa dala qowm qolo ma dhumaan qoladu waa nakira zaman kastay joogi karaan so inay tanwiin saaran tahay ma aragtaan waa nakira maa dalla ma dhumaan qowmun qolo goorma bacda hudan hanuun kadib qolo markay hanuunsanaayeen oy iimaan lahaayeen oy barwaaqaysnaayeen kadib qolo ma dhumaan alaa bacda hudan kanuu calayhi hanuun ay ku dul sugnaayeen kadib qolo ma dhumaan ilaa hadday dhumaan uutu waxaa la siiya aljadala dood waxaa lagu imtixaamaa muran maxaa shaqo looga dhigaa dood iyo muran lagu murmo diinta lagu murmo qadarka lagu murmo aakharo lagu murmo wax walba lagu murmo wax walba muran ka keenado so ummaddu maanta khatar kuma sugno ummaddu haddayna cilmi ku soconin maxay ku soconaysaa dood iyo muran sooma ummadda maxaa kala haga aqoon iyo cilmi macrifo ummaddu haddayna aqoon iyo cilmi lahayn waxaa lagu imtixaamaa inay doodaan oo hadlaan oo nin walba doonayo maxay wuxuu doono inuu sheego nas'al اllaha alcafwa walcaafiya uma qara'a nabigu wuxuu aqriyay sal slama maa darabuuhu laka ila jadala suurat zukruf aayadda 58 ayad maxaa kasoo bilaabanaysay fiiri aayadda walama duriba bnu maryama mahala ida qawmuka minhu yasiduun waqaluu aalihatuna khayru am hu ma darabuuhu laka ila jadala bal hm qwm khasimuun in huwa ila cabdu ancamna calayh wajacalnaahu mahala libani israa'iil alla muxuu ku bilaaba aayadda subxaana wa tacala maxaan ka soo bilaabad aayadda ya walama duriba bnu maryam alla wuxuu yihi walama duriba bnu maryam walamaa duriba bnu maryam nebi ciise markaan tusaale ka dhignay mathalan markaan ka dhignay ilaa qowmkaaga markaan tusaale ooga dhignay nebi maxamed alayhi salaam oo quraysha waaba ayagoo diiday waawka laakiin waxay ka dhigtay qaaluu aalihatuna khayr am hu waxay dhaheen ma ilaahyada iyo asnaamta aan caabudaynaa khayr badan mise ciisa khayr badan fiiri waxay keeneen ma qoryo iyo nabi miyaa laysu keeni karaa alla wuxuu yidhi arrinkaasi way og yihiin xaqiiqade maa darabuuhu laka mahmaah kagama ayna dhigin waxay ku mahmaahaan iyo mathal iyo tusaalo ma ayna ka dhigin laka adiga nabi maxamed alay slat salaam ilaa jadalan dood un bay uga dan leeyihin
ويؤجين حقيقة ده ضواب بيؤجد الليين ما ضربوه لك إلا جدلا يعني تصالح أو ما أين سوق هذا عيسى إيو اسبربرديق محي أصنامتا يعابد يانو هبل إيو كوا لمدك إلا جدلا مرم بأقد الليين ما عدا إن هو إلا قوم خصيمون إن هو إلا عبد ونبي عيسى أنعمنا عليه وجعلناه مثلا إله معها آلهتنا خير أم هو أقد شيئا ما ضرب أيضا مركا إنت أصلا ما كان مغنيت ومعنوه مركا سكسو قبطات قرنا يسامر قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله وحوله أصول السنة عندنا أصوش أهل السنة والجماعة عندنا معشر أهل السنة التمسك وقبصش بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة النبي وحي كدوا السجنايين الله قبصده تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح مركا ما كان بما كان عليه أصحاب الرسول والاقتداء بهم إيا إن أيغا لغو ضيضه إيا وترك البدع إيا بدعاء لغتبه وحي دينتا لغو صدره قاب عبادنا لغو صدره صحابي إيا تابعين إيا تابعين أين أغين أيا بدعا لها وحي الدنيا ويفرنت أنتم أعلم مني بأمر دنياكم والنبي صلى الله عليه وسلم والدنيا دي إذن كأيغا يقانا أما آخر وحي الله حرير أو عبادة كل عبادة تفتقر إلى دليل عبادة والبوحيوب أنت الدليل كتوسية قفاكو يري موليد كان دقيا ورمحاكو تسية موليد إي كامبل يا محاكو تسية أي القرآن ما يسامية أو حديث ما يسامية ما اللغلوقة لو حلقة الرادية ويا أبو بكر ما سميه مايا ما ذاك تشعل أبو بكر نبيك مايا عمر ما سميه مايا أو ما ذاك تشعل مايا وهكذا صحابة ما سميه مايا أو وحينا هذي صحابة خير كتير لها لسبقونا إليه وإنه ظهر مري لها ين تابعينتي وحي صحابة دي قرن وين من أدو قرن ويدي تابعينتي ما سميين مايا تابع الأتباع ما سميين مايا أو يا كيري شيعة فاطمين وعبيديين وغريب وحلا ياب لواي دد باس لغو امتحانا وولي مرنكي تاغن marka doo ruuxa ka daaro hadii nabiga diidayn alayhi salaam salaad biga ma ansaxaysa hadana nabiga ku sallallahu alayhi wasallam usul sunnati indana tamassuk bima kana alayhi ashab rasul iqtida wa tarku al bid'ati wa kullu bid'atin fa hiya dalalah bid'a kastana sidada waa baadi bid'a hasana ida laga maqlay ayada dalil laga raba nabiga kullu xaga usuusha markii loo noqdo qawaa'id usul fiqiga cilmiga la yiraahdo وحاجر الفاظ عموم كفائدية كل ذاكم ولي وحالي هذا كل ومن أعم العمومات عموم كوحيابها كينا بي أبو عام صنطايبا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك فهي ضلالة وترك الخصومات إيا ضد إن لقتقه إيا والجلوس مع أصحاب الأهواء باب كلام قلت يدونا باب زنصعدا دادك هوذو ذراعة إن صاحب لقدك تؤل لفريستو أي سلف كديدين إيا وترك المراء والجدال إلا للضوضه إلا إن حق العدين يؤو قابنا سلوه شيء إيا والخصومات في الدين الجدل المذموم وتاني الجدل كله أقيب سما الجدل المذموم والمحمود متك إيديسان اللي عاي وكي وكل ذلك من الجدال بالباطل وحان صور شيغني أو حد عن شيغني أوردن وخصومة كتك وحان صورين لقوليه وفي الجدال ومرنك بالباطل لغو دوضو marka baatil ku doodayso sharcigu ma ku ogol inaad baatil ku doodo ma lagu ogol yahay inaad baatil difaacdo macsi inaad difaacdo shirki inaad difaacdo dhulmi inaad difaacdo qabiilkiina aad dhulmi ku difaacdo waa inana waa aljidaal bil baatil way anaga reebela marka anaga baatil waa noogta soo كل والجدال بالباطل أو الجدال في الحق أو الجدال في الحق بعدما تبين أما مركي لقو عدي حق كذب إنا ضادي سي وضو
aw iljidaali fi lxaqi baad ku doodaysaa goorma bacdamaa tabayana marka uu kuu caddaaday kadib aw iljidaali fi ma laa yaclamu almuxaaju ama waa dooda qofku wuxuusan ogeyn almuxaaju qofka doodaya wuxuusan cilmi ulahayn uu ku doodo laa yaclamu hada shay wamaca dalika yujaadil wa yukhaasim aw iljidaali fi lmutashaabihi ama waxaad ku doodaysaa waa qur'aanka iyo axaadiidta waxaa isdhex galay alif lam mim baad maanta o dhan macnada raadinaysaa alif lam mim sad baad macnada maanta o raadinaysaa ya mutashaabiha dadka quluubta ka jiran un baa raacraaca inanay aayaadka labay u qaybsamaan aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaab wa ukharu mutashaabihaat mutashaabihaadka waa aayadda laba macno iyo ka badan faa'iideynaysa ayaa mutashaabihaat la yidhahda faama aladiina fi quluubihim zaygun ay maylu can ilxaq fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaa alfitna wa ibtigaaa ta'wiilihi sidaa daraaddeed wixii mutashaabih ah ta'wiilkiisu laba mid u wey wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah in la yidhahdo ilaahay besa og tabaaraka wa tacaala iyo wowgaas inaan lagu istaagin oo wowga la yidhahdo waraasikuuna waawul istinaafiya laga dhigo iyo in mataqaanaa lagu cadfo oo la yidhahdo ila allahu waraasikuun alla iyo kuwa cilmiga ku xididaystay baa og tabaaraka wa tacaala calaa kuli xaal aayaadka mutashaabiha ah inaan la dhex boodin oo min alqur'aan aw iljidaali bigayri niyatin saalixa ama doodaad waxay ku dhisan tahay waxaa niyad wanaagsan ahayn oo hawa nafs iyo intisaar nafs iyo intisaar limadhabika wa shaykhika aad leedahay aniga sheekhaygaa saas yidhi ya ama sidaa ma aanan maqli jirin ma aanan arki jirin qul awalow kaana aabaa'ukum laa yacqiluuna shaya walaa yahtaduun oo aabayaalkiin iyo awowyaalkiin aad leedihiin inaa wajadnaa aabaa'ana aad leedihiin calaa umma aad leedihiin ilahay baa jawaaba wuxuu yihi qul awalow kaana aabaa'ukum laa yacqiluuna shayan walaa yahtaduun waxaan maana arki jirin ma diin ba waxaan maana arki jirin ma cilmi ba culama allahi may cilmi ma waxaan maana arki jirin laakiin waxaa cilmi ah shaygani ma waafaqsan yahay maxay kitaabka qur'aanka ah iyo sunada nabiga sal ly slam iyo fahmu salafi hadihi lumma waxaan aada nafteyda ugu waanin lahaa qof kastoo muslima intaad nooshahay ha ku mashquulin waxaan maana arki jirin iyo waxaan maana maqli jirin waa takhalluf waana jahli laakiin waxaad u bandhigtaa waxani kitaabka qur'aanka iyo sunada wa ilaa waktiga ayaad kaa dhacaya kaana dhamaanaya waxaan la hadlayaaba soomaaliya waxaan moodaynaa af soomaali ku hadlayay baaraka allahu fiik waa tabtaas wey khayr allah kus waa sidaas wey xaqiiqada waa in arrinta aan awiljidaali bigayri niyatin saalixa sax jazaka allah khayr akhi fadhiga baan ku qurxinaya waa saxan tahay jazaka allah khayr waa laga marka qaarkood in doodaadu inay ku dhisan tahay inaad u hiilinayso maxay sheekhaagii ama madhabkaagii waxaa soo maray muslimiinta tacasubka madhabiga ah in la yidhahdo ana xambaliyun maa xayitu wa nasiixatii linnaasi an yataxambaluu anigu xambeli baan ahay intaan noolahayna xambeli baan noqon madhabka xambeliga waxaan kula talin lahaa qof kastoo taladeeda dhegaysanay inuu madhabka xambeliga noqdo limaada waxaa laga doodayaa gabar xambeliya ma guursan kara nin shaafica maya so yaab ma halkaasay muslimiintu soo mareen waa gariib waa cajiib inay muslimiintu ilaa hada lmustawa inay soo mareen oy marka ay gaadheen soo khatar maa sida madhabka loogu tacasubayo soo ma marka inaad sheekaaga xarakadaada jamaacadaada qabiilkaaga gobolkaaga waxaasoo dhan inaad xaqa indhaha iska tirto dado sheekaygii baa yidhi oon xaq ahayn xarakadaydii baa tidhi oon xaq ahayn madhabkaygii baa yidhi oon xaq ahayn ugaaskaygii baa yidhi maraaqaygii baa yidhi garaadkaygii baa yidhi wabarkaygii baa yidhi saa loo xanaaqin nina baaladu magacyadu waa la kela suldaankii baa yidhi iisoo waday raalli hada cidday ka maqan yahay suldaanka ya
عمر waa shay caaqil iyo away sheekh muxuu ahaa maya mid baan la ahay boqor imaam axsant imaam haas imaamkana wuu jiraa marka waxaasoo dhan haddaad waa itibaac indhala-aan ood raacayse culama allahi waxa la raacayo muxuu yahay waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada ay la socoto fahamkii saxaabada iyo taabiciintii taabic atbaaca intaasaa diin noo ah wixii intaa ka badan ama ka hooseeya waktigiina ha ku dhuminina wanaxwi dalik aljadal maxmuud haddaba dooda macaan ee la ogol yahay ee ammaanan ama ida kana aljidaalu liidhaari اlxaqi wa bayaanihi min caalimin lahu niyat صaalixaة multazimu biladabi fadalika mima yuxmad allahu akbar hadal yani waa jumlo mudan in lagu qoro yani bimaai dahab biyaha dahabka in lagu qoro intaa aan sideeta u qabano muxuu yihi mualifku raximah اllah dooda banaan ee fiican ee wanaagsani waa midda liidhaari اlxaqi in xaqa lagu caddaynaya maxaad ku caddaynaysaa xaqaad caddaynaysaa ko wa bayaanihi waad caddaynaysaa yayna ka soo fulaysaa ma qof kasta oo caamo ah may min caalimin nin cilmi u leh oo caalima weliba caalimkaasoo lahu wuxuu leeyahay markuu doodayo niyatun saalixa hawo waa ka maran yahay waxaan sheegayno o dhan waa ka maran yahaye ujeedadiisu waa xaqa bayaani ayadoy la socoto niyada oo haddaad xaqa adiga lagaa helana cala alra'si waalcayn waan raacaya samicnaa wa aطacnaa weli laba wadaad oo soomaaliyeed oo dooday isu garaa maarteen balaa la soo raadiyey adduunka intiisa kale intay niqaashaan ayuu nin dhahaa nacam mas'alada waa layga hayaa waa la iga bediyey xaqi baan ii caddaaday waan kuu mahad celinayaa shukran aniguna xaqaan raacay waa laga hayaa adduunka intiisa muraajacaad baa la dhaha wa arkaysa fulan 20 sano waxaa fatwoonayay uma taraajaca xaqi baa u caddaaday nuuqish wa nuudira waa lala niqaasho waa lala munaadarooday kadibna xaqi baa u caddaaday wa taraajaca wa rajaca ila alxaq mar hala soo helo laba wadaad oo soomaaliyeedu intay doodeen oy munaadaro sameeyeen mid yidhaahdo khalaas waa isdhiibay marka wadaadkaa wuxuu sheegaya run marka wadaad iyo waran laba habeen malmas waa la isradiyaa waa run radintu hadday cilmi leeda waan ogolahay laakiin maadaama cilmi ku dhisnayd waxaan doonaynaa inaanu helno ya labadii wadaad inuu mid uun lasoo helo de labadu xaq kuma wada socdaane soo sax ma labadu ma xaq bay ku wada socdaan maya labadu xaq kuma wada socdaan mid bay masale ka khaldan tahay sooma midna way u saxan tahay sooma haddii la isfahamsiiyey muu kani ictiraafo oo uu yidhahdo maxay xaqi waan ogolaa arrintaasi in aada looga shaqeeya u baahan tahay bisayl bayna u baahan tahay xadaarayna u baahan tahay waxayna ukhuduucaysaa anigan culamada soomaaliyeed tuhmaynin haddana kelimadan ba xusay caalimun lahu niyatu saalixa lianna niyada saalixada maxay ku siinaysaa ya inaad isdhiibto oo dada samicnaa wa aطacnaa multazimun biladabi haddana waa markii la doodayo waa in aadaabta munaadarada cay waa inaan jirin aflagaada waa inaan jirin shaksiga qofkood u gudubto waa inaynan jirin mas'alaan isku haynaa mas'alada ku ekow shaksiyaddeeda ha usoo gudbin shaksiyaddeeda ha u gudbin soo saas maaha laakiin mas'alada aanu ka wada hadlayno ee naga dhaxaysa ee qur'aan leh ama xadiid leh qaababka aad u daliishanayso ama aan u daliishanayo anigoo maskaxdayda tuhmaya caqligaygana tuhmaya ra'yigaygana tuhmaya inta aan garanayo waa inaan kuu soo gudbiyaa qaab ay ku dheehan tahay adab iyo akhlaaq xubi iyo jacayl iyo bayaanin xaq taasaa wax lagu gaari karaa falidalika mima yuxmad arrinka aan soo sheegnay waa midka la ammaanay qaala allahu tacala la wuxuu yihi udcu u yeedh baa nabiga lagu yiri sal slam ilaa sabiili rabbika rabbigaa diintiisa iyo caqiidadiisa waxaad ogu yeedhaa markaad dadka u yeedhsa bilxikma adigoo xikmad ku dheehan xikmadduna waa shay walba meesha ku haboon oo la dhigo yaa xikmada dhahaa in allah soo xakiim ma aha shay walba meesha ku haboon buu dhigaa subxaana wa tacaala iyo wlmawcidati alxasana waana wanaagsan waxaa laga wadaa wlmawcidati alxasana
هذا المعان أن ترحان لهين هذا الآن قفك داوعين هذا القفك قلبي سجلية هذا الدليل وته أو قرآن السنة وته أو الدليل وته أو سلف كفهم كودي وته أذيقوا قصة يا أم وصونية وجه أنا لقى أركي يقفك خير لدونيس والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كل ضد بالي مدة أحسن وليبا على وزن أفعل صيغته هدي مربى وزن أفعل كي مادو أو أحسن كي مادو أو أكرم كي مادو وحاول مبالغة لقد خلقنا الإنسان في أحسن وفرق بين حسن وأحسن فرق بوضح هذا حسن وهذا أحسن هذا أفضل هذا أخير هذا أكرم هذا أفهم هذا أعلم مبالغة بجرد مركا الله في أحسن وجادلهم بالتي هي أفضل هي أحسن مد أقونا قبضا كل الضوء يا هذا المدك أقونا قبضا فعل مدك أقونا قبضا وقال تعالى له ولا تجادلوها كل الدوذين أهل الكتاب هذا ويهودي نصارى هذا لقاضي حتى المسلمين معايا ويهودي نصارى إلا بالتي هي إيش مرة بعد هي أحسن أيضا الأفضل والأحسن والأكرم هذا المدك أقو في عن أقو ونأكسن كردو إلى الله كانوا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم قال هذا إله يدو عايب بالويل ومحانا عاي تلعروتو هذه الإله عابد يسوى النوعة وانا النوع كدروية حقا وراء صح مناظرة ما همدا مع إلهي حقها أبو مركا أيو عينيها إلهي حقها أيو عينيها لما أقول مرك مناظرة ما مرك نين عيتمي سيدي سوى لقات كاسو مقدين سيدي سوى قاعدة قاتا هدارت نين عيتمي ولقات كاضي بضاعة سنة ويرت بديعة سنة ويرت وبضاعة مزجاة مركا أظن حراقين حقها قد بي صور في عما وقال تعالى إلى حين قالوا يا نوح قد جادلتنا ما حيكون هين نوحو قد جادلتنا وانا لا دوضي وركي بعد نقول بدي سوف أكثرت جدالنا ولي بعد دوضي بعد نقول بدي سي إيه فأتنا بما تعيدنا بل عذاب كأن نقول قدو يسنوه كامبل قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا نوح ودودي بعد نقول بدي سو وانا لا دوضي ودودي بعد نقول بدي سي فأتنا بما تعيدنا بل عذاب كأن نقول يبوه يسنوه كام يا سلام إن كنت من الصادقين صمدعن نبي نوح ها ودعي ربي لا تذرني ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ومركي لو شيغي قف دنبو رمين دون انو زنجرين واجب واخبر تعالى الله وحو نو شيغي عن محاجة ابراهيم وركا هرو ايغا تغي ما استان نبي ابراهيم دوديس او لا دوداي نينكي الهنimada sheegtay ee la dhigi jiray namrud binu kan'aan diinteenu ayada dooda wanaagsan asal ah warka meel ku qoro dhalan yaro كل قرآن كأغري عدة بقانيسة قودية waa عدة كله أما مسلم كون السجية دودي سنة ويسعنتها هل دقيقة وقلاسي سريعة إلى أمثلة قصية مدوا قصة النبي إبراهيم نبي إبراهيم لفتيسة إيا أبيه إيا قوم كي سؤولا أو إسبير صدي سورة الأنعام إيا سورة الأنبياء إيا سورة مريم أقري إلى أي مركز دم الضب والشيدين أو أي ضب كتورين الله نأهيلي تبارك جل وعلا صصص معها وهذا غير قصة موسى مع فرعون بل قرآن كسورة الشعراء هي سورة كل بالآخر قصص بل واحد أحمر فيري حقيقة دم بيسي مناظرة دي نبي موسى يا فرعون أحمرتي سحرة دي مركز الله يعري أول الطوري محالي هذا وحي أي سوم المليجين إن صراعات كأها نبي موسى وابكي عبصديبة لكن مركو أشي سطوري واتي وحيودان عنطي فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون مركي نبي موسى أتكاضي أو لقى أتكاضي فرعون نيكا قد ما نبي موسى مسوى فرعون
fircawn baa intuu cadhooday yidhi qaala aamantum lahu qabla an aadana lakum ina hada lakabiirukum aladii callamakum الsixra falauqaطicana aydiyakum waarjulakum min khilaafin walausalibanakum fi juduuci الnakli walataclamuna ayuna ashaddu cadaaba waabqى. qofka yidhi geedaa idinku xirxiraya ma nabi muuse mise waa fircawn? waa fircawn, asagaa cararay. wahaakada qaabiil iyo haabiil markuu alla yidhi id qarabaa qurbaanan fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhari, oo haabiil la aqbalay ducadiisii oo qaabiila la aqbali waayey, ninka yidhi waxbaan dilayaa ma ninkii mu'minka ahaaba mise waa ninkii kale? kii kalea wuxuu yidhi laaqtulanak qaala inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak hada huwa alirhaab. irhaabka xaqiiqiga kaa wey. irhaabka runtae xaqiiqada ah ma aha muslimiinta. irhaabka runtae xaqiiqada ah xoogaa ma cabsanaysaan mise waa okay soo ma? walidalika ba shaacirka wuxuu yidhi waqatlu qirdin fi jariimatin fi gaabatin jariimat la tuktafar waqatlu shacbin kaamilin mas'alat fiiha nadar. daanyeer duurka lagu dilay xuquuqdii xayawaanka o dhan baa istaagaya. shacab dhan oo la baabiyena qiil baa loo haystaa. irhaabiyiin way tukadaan. waa la fahamsama? marka diintiina ku dheganaada, ku dheganaada. leesh leanna mabda'iina haysta, caqiidadiina haysta. lianna qofka muslimkaa isagaa xujada leh. qofka muslimka ah ma aha qof wax dulmi ah. qofka muslimka waa qof musaalim ah. qofka muslimka waa qof badeeco aada qaali u ah wata oo ah aliimaanu billah walcamalu الصaalix. ومع فرعون نعم ومع قومه عليه السلام مع قومه وموسى عليه السلام مع فرعون. وفي السنة ذكر محاجة آدم وموسى. آدم يا موسى واتي مسألة قدرك كد doodeen. ونقل عن السلف الصالح waxaa laga soo raray مناaظرات كثيرة doodo aad u fara badan وكلها من الجدال المحمود. kulligood waa dooda ammaanane xaqa la iskugu cadaynaya min caalimin lahu نية صالحة aanu soo sheeg الذي تتوفر فيه ay dhexdiisa laga helay ko العلم ko waa qodob koobaad والنية labo والمتaaبعة وأdاaب المناaظرة waa meeqa waa afar ila tiriya. ko alcilmu waxa lagu doodaya waa inuu noqdo maxay? طب النiyatu waa inay niyaduna saalix tahay oo xaqdoon tahay. saddex almutaabacatu waxa la raacayo waa inay tahay nusuusta qur'aanka iyo sunada nabiga. ma aha inaad bidac iyo khuraafaad iyo quscabalaad lasoo fabrakaad lagu soo sameeyey inaad meesha la timaada ma aha. la waxaad ku doodayso qaala allah alcilmu qaala allahu qaala rasuluhu qaala صaxaabatu wama siwa dalika fahuwa min wasaawisi shayطaani siduu ninku yidhi. cilmiga laguu sheegaya waa qaala allahu qaala rasuluhu, qaala allahu qaala rasuluhu. marka doodaa iyo murankaa dadkii aadka ugu mashquulayna marka dambe iyo cilmu lkalaamka iyo cilmu lfalsafada iyo waa kuwii marka dambe yidhi nihaayatu iqdaami اlcuquuli ciqaalu وأkثر سعي العاalمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وآخر دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا إن الله كره لكم ثلاث قيل وقال. يعني inaad maanta o dhan hebel baa yidhi alla yidhi rasuul baa yidhi soo ma taa weeye maxaa la yidhaha midda la doonayo in lagu doodo. markuu yihi wqul inama اliimaanu qwl waniyaة waficlu calى qwl الnabiyi musarixu wayanqusu طawra bاlmacaasi wataaraة bطaacati yunma wafi lwasn yurjaxu wadacanka aaraء الrijaali waqawlahum wadacanka aaraء الrijaali waqawlahum faqwlu rasuuli الlahi azkى waashraxu walaa takun min qwmi talahw bdiinihim fatطcna fi ahli الxadiiثi wataqdaxu. leesh لأnna haddaad cilmu falsafo ku doodo iyo qiila waqaala xadiiaad duraysaa, sunada nabigaa duraysaa salى الlahu عalيه wasalam. dooda aduna hebel baa yidhi iyo hebel baa yidhi bay kusoo gabo. alcilmu qaala allah qaala rasulu qaala الصaxaaba.
ولا فهم سما هل كاوي مركب مدو دون يوضع والمتابعة وأداب المناظرة مناظرة آداب بيننا محاكم إذا آداب المناظرة تحرير المسألة أنا ورقدم بان كدو دينا كوبك كبدو دينا ميسكنا كبدو دينا تحرير المسألة هرت مسألة لقد دو دينا وإلا سلوء قليا وإلا استحريريو أو مسألة العادية لا سلوء قل هذا وحن كدو دينا ومسألة ذا وإلا إلى هذا كدبنا آدابتك الله إلى التحذير من مجالسة أهل الأهواء كدبنا المؤلف كتاب كان باب كان وكو ختيم دونا إلهي خاتمة ذا إن خيرها كو ختمه دقيد الاسكيد دقيد يددك هود وضراعة النفط وضراعة اتباع الهوى وعذر خطر أويه قفك إنه نفتي سرع هودي يسرع ونبي قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار مركدتك هود وضراعة صار شيء تقليد الأعمى إن الآن تكون راعة شيخي سراعة حرتي سراعة جماعتي ساوحا كن راعة حركتي سراعة قبيلك سراعة نفتي سوهي لي محالي هذا الهوى هودنا إلهي وأن نوجد تبارك وتعالى أكثر وحذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا أهل السنة وحي آدوا قد ديجين وإن بدن أي كديجين من مجالسة أهل الأهواء dadka hawadooda raaca in lala fariisto iyo wal bidci iyo bidcooyinka dadka ku caanbaxay taxdiiran shadiidan laakiin maanta maca alasaf aad looma garanayo ahlu bidca nin walba marka qofka khilaafsan ba ahlu bidca soo ma arkin aniga haddaan iskhilaafno aniga ahlu bidca baan wax aan bidca laga dhigin bay dadku bidca ka dhigaan mas'alada waa midaan lahaa taxriiru lmas'ala u baahan tahay horta maxaa bidca la dhahaa بدعة أقسام بين هذا بدعة مكفرة وغير مكفرة بدعة قفك وكو قالوا بي يمد وسن كو قالوا بينن مركا وين أذوق هذا ورت محا بدعة معها قفك أنا خلافة إنه التكفيرية قفك أنا خلافة إنه أهل البدعية ما معروف ميزان كاساس ما هكذا تورد الإبل سيدا قيل له ما أروريو هكذا سيدا قيل له ما أروريو بدعة ووحلة يقانه ومعروفة مخالفة بالكتاب والسنة ولذلك الشيخ مركو صو أروريي وحن أركي دونا ميشو مدح وقلي مركو دميس وحيري لأن مجالستهم فيها إن مكا لنفري صدد كاسي ومخالفة أمر الله أمرك إلهي بعد خلافت وهي علامة محبتهم وحين علامة الدليل أتهي إن الأيقة تعش مرة بدأ كل علينا ما تقفك الصون أنا إسخلافنا هدان دو بدع أدلي شدو ما صعبا كان أنا هبل وهذا هبل لا صعته أنا قعدت إذا بدعو كذا حكومية هي وهذا هبل بايرين كوابدع أما شيخ وابدع أما مساجد كوابدع صادر هذا لا صعته إن تعيش هاي علامة تاي أما هديد أرت هذا لا صعده حلقة صار يا كوح هذه إيو كوات كتر سنة بلقى صار يا ولقي فهم كقلوا عن أو كم مرورسن ولقي مارك حيوبها أنت maxaa bidca la dhahay in la ogaado yaa bidca markay tahay in la yidhahdana bidcadii la kala saaro kadibna dawaabideeda lagu sharxo marka nin walba hadduu dalwa waa dhib waay wahiya calaamatu maxabatihim wa mujaalisuhum la fadhiisigooduna calaa khatar bay ayaa ka dhalanaysa min alinqiyaadi ilaa dalaalihim inay baadinimadooda ay ku jiidaan ay ku jiidaan bay khatar ugu jiraan iyo ومتابعتهم على باطلهم إيه إن الباطل كوضع أذكر رعضه دوار وخطر قال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيري والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفة أهل الكتاب والسنة رحمة الله عليك يا ابن تيمية كرمبو شيخ وعجيب حيري كأنما إنا داوين أيو قوم كده أن كهل ليني أما أنت لبضي إسخلاف طبع أما لبضي جماعة إسخلاف طبع أما لبضي كوحوض إسخلاف طبع ومن والمدك ليه ما داموا أنا إخلافي أنا على الحق وهو على الباطل وحين والبدعة التي يعد بها الرجل بدعة الله تيرنا يقفك من أهل الأهواء نيه بدعة الله ليه كرنك وأهل الأهواء وما اشتهر عند أهل العلم بالسنة وما اشتهر وحي كعان نقضي عان كنقضي عند أهل العلم أهل العلم أكتوضا بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة
يعني ووحى أهل السنة أهل العلم أكتوض عان كان نغضي يعني مخالفة أي كعديين كتابك القرآن كأي السنة كبدعة الخوارج مثلا شيخ ميش صالة كاسي في شيخ الإسلام تيمية كبدعة الخوارج خوارج بدعة لا تمد أو محيدهن إيمانكم مزيادة من النسخام وبدعة إيمانكم يا إما إلي بهاشا بوحده يا إما هدايس لنتين وقال نغضه أو كبائر نغضه وبدعة يا بدن صوماها وبدعة أدو يا بدن ذاتك ويلي مادين بدعة كبدعة الخوارج وانا السببتي مركا دادك الله يانوي اي وحو التكفيريان وانا تنكو ديراني الا حالي يهبين وانا مركا نكاهد ليني مسألة ما تغنى كو صابسا ائمة المسلمين وآنو لهين ايقو موقف غيقاتين وامحي هدوما امام كان مسلم كأه وكدعو كبيرة من الكبائر وإن لغبحا او لردق علما وهذا مخالف للسنة أرنتها السنة النبي أي خلاف سنتهي صلى الله عليه وآله وسلم كبدعة الخوارج والروافض روافضون ونمك الشيعة لبحي واقعوا مقعود الرافضة اللي يجري الشيعة ومقع في عن محايا لي إن من شيعتي لإبراهيم لكن مقعد استعمالهم كعام بحين لكن أصل كودو وكو حكم علي الرفضي صادر ردد بالرافض اللوبحي وانا نمك أدونك هذا كو انتشارية قالنا أي دبضة كودو doonaya inay ku faafiyaan caqiidadooda baatilka ee faasidka ah gabdhaheena cafiifaadka ahaana ay doonayaan inay mutco wax la yidhaahdo oo sanadkii lixaad ba la nasakhay oo khaybar lagu nasakhay maxaa la yidhahdaa ay maanta ay doonayaan inay ummaddii ay ku fasahaadiyaan oo ay dhahaan jibriil baa khaldamay markuu nabi cali u dhiibi lahaa buu nabiga u dhiibi sal slam saan habeenka dhaweyd aan u sheegnay oo kale aan soo tilmaanay nimanka ayagana khatartooda ayay leeyihiin walqadariya nimanka qadariyada la yidhahdo qadarkaba aan aaminsanayn ama qaybahooda iyo walmurji'a nimanka murji'atu aljahmiya loo yaqaan ma aha murji'atu lfuqahaa ma aha ee waa murji'ada maxaa la yidhahdaa camalkiiba ka saarta iimaanka camalkiiba iimaan ka saareen laa yaduru maca aliimaani macsiya walaa yaduru maca aliimaani damb iimaani ka iimaani jibriil wa mika'iil iimaani ka iimaani abi bakr wa cumar qofka haduusan weligii waxba la imaanin oo tacriifka iimaanku muxuu yahay cinda almurji'a waa qawlun bilisaani waictiqaadun bilqalbi faqad camal kuma jiro ha tukanin ha soomin ha salaadin dhinaca kale muslimiinta lay dhiigooda daadi xoolooda cun adiga jibriil isku meel baad jannada ka gelaysaan waxaas dadkaa wey dadka mataqaanaa iyo kuwa lamidka ah qaala tacaala ilah wuxuu yidhi waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fi aayaatina faacrid canhum xataa yakuuduu fi xadiiin gayri haddaad aragto kuwa la fadhiya iyo kuwa dhex dabaalanaya dheh ee dhex gelaya fi aayaatina kuwa aayaadka iyaga ku murmaya ee dhex gelaya ee iska dabaalanaya bilaa cilmin wa bilaa basiira ayagoon wax cilmi ku soconin faacrid canhum iskaga jeeso xataa yakuuduu fi xadiiin gayri ilaa sheekadan intay xidhaan ee sheeko kala galaan waimaa yunsiyanaka shayطaanu hadduu shayطaanku hilmaansiiyo ood aragto ayada oo aayaadkii la dhex tiimbanayo baatilna lagu murmayo adiguna aad dhex fadhido oo shayطaanku hilmaansiiyo falaa taqcud bacda dikra xusuusasho kadib ha sii fadhiin ka istaag meesha maca alqawmi الظaalimiin qoladaa hala fadhiisan soo qaacido fiican maaha cajiiba fadhigeen la ogol yahay fadhigan oo kale fadhiga islaaxa bayna الnaas fadhiga khayrka fadhiga sadaqada la isku amrayo fadhiyada wanaagsan wailaa fadhiyadeena inta badan maxay u bateen ilaa man raxima rab اlcibaadi qiila waqaal iyo kiiba iyo xan ilaa man raxima rab اlcibaad qaala ibnu cabaas wuxuu yihi xabru hadihi اlأuma watarjumaan اlqur'an wahuwa ibnu cami الnabiy salى اllahu alayh waalih wasalama ibnu cabaas wuxuu yihi dakala fi hadihi اlaaya aayaddan waxaa soo gudagelaya kulu muxdithin fi اdiin qof kasta oo diinta kusoo dara waxaan kamid ahayn qof kasta oo kusoo dara diinta wax aan kamid ahayn ayaa aayaddan soo gelaya wa kulu mubtadicin ilaa ywmi اlqiyaama nin kasta oo mubtadicana waa soo gelaya ilaa adduunka laga rogo naqadahu arrinkan waxaa ka soo raray ibnu cabaas canhu xaggiisa albagawiyu alimaam albagawi kitaab tafsiira buu leeyahay miyuu sheegay ha albagawiyu fi tafsiirihi alimaam albagawi
ayaa kitaabkiisa tafsiirka ah maadaama cabdullahi bnu cabaas uu mufasir ahaa ayuu kaga soo guuriyey. wa qaala ibnu jariir itabari waa mufasirkii weynaa isna wuxuu yidhi wa fi hadihi alaaya addaalatu alwaadixatu cala annahyi can mujaalasati ahli lbatil min kuli nawcin min almubtadica walfasaqa cinda khawdihim fi batilihim ay intaha buu yidhi. wuxuu yidhi aayaddan waxaa soo gudagelaya bu yidhi fi hadihi alaaya addaalatu alwaadixa aayaddan waxaa ku sugan caddayn cala annahyi reebidna laga reebay caddaynteed baa ku sugan can mujaalasati ahli lbatil dadka ahlu batilka in lala fadhiisto reebidna laga reebayo min kuli nawcin min almubtadica addalaalatu miya axsantu qaala ibnu jariir itabari wuxuu yidhi wa fi hadi laaya addalaalatu alwaadixa sax jazaka allah khayran waxaa ku sugan caddayn baa ku sugan addalaalatu alwaadixa yani waxaa ku sugan daliil cad cala annahyi can mujaalasati ahli lbatil ahlu batilka inaanu la fadhiisano reebidna laga reebayo min kuli nawcin min almubtadica nooca ay noqotoba noocay doontaba ha noqotee maxaa la yidhahdaa mubtadicada dadka macnaha diinta ku soo daray min kuli nawcin min almubtadica nooc kasta oy mubtadicadu tahay ama qaab ha ka yimaadeen khawaarij ama qaab ha ka yimaadeen muctazila ama qaab ha ka yimaadeen maxaa la yidhahda kuwo kale oo qubuur dul fadhiyo intaa barya sheekh cabdiqaadirowda ku haya maanta dhan ma garanaysaa noocay doontaa ha noqdeen iyo walfasaqati kuwa ilaahay ka xarig furtay ee fusaqada ah ee dee ilaahay caasiyey tabaaraka wa tacaala cinda khawdihim marka waxyaalaha la yaab kale waxaa kamid a qolyaha heesa ayaa waa dhexdeeda waxay sameeyeen ramadaankii hadda miskii ka horreeyey hal xidhaalo qur-aanka abay sameeyeen hal xidhaalo qur-aanka abaanu samaynaynaa baa layidhi ya ciyaar waay arrimaha noocaas oo kale waa ciyaar way qur-aanku hal xidhaalo ma gala adeer qur-aanka in lagu dhaqmo oo waa dastuur waa wax lagu dhaqmo oo wax lagu camal falo waa noolal maaha wax lagu tafakur laga dhigto oo ramadaanka la isku dhaafiyo oo aayaddaa soo tuuriya aayaddaa ma dhamaystir iyo wax lamada dad asalkooduba camalkay ku jiraan uu yahay camal aan islaamka iyo muslimiinta midna u khidmaynaynin anaga iyo iyagaba allah hanuuniyo. walfasaqati cinda khawdin fi batilihim qaala ibnu cabaas warqadda soo rog u dambaysa qaala ibnu cabaas wuxuu yihi radia allahu tacaala canhu laa tujaalis ahla alahwaa dadka hawadooda raaca ha la fadhiisanin qaraabaan nahay iyo ya isku qoys baan nahay iyo isku gobol baan ka imaana iyo dee sheekadaa way fara badanta laakiin sunun baad ka qaaday iska ilaali haddaad dacwo ugu yeedhaysa laakiin sooma furno haddaad dacwo iyo khayr ugu yeedhay sooma furno haddaad masaajidka ugu yeedhayso sooma furno haddaad qur-aanka barayso sooma furno laakiin adig intuu ku duubsado inuu salaad la-aan ku dhigo middaa weye midda lagaaga baqayo ama caqiide xun uu kugu tallaalo oo nabiga gacantiisa uu kugu waraabin waayo maalinta qiyaamo caamilatu naasiba aad ku darmato hal unabiukum bilaksariina acmaalan aad noqoto aladiina dala sacyuhum haye fi lxayaati اdunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca inay wax fiican la imaanayaan bay moodayaan adduunyada arrinkaa ha ku dagmine diintaada yaan marti ha ka noqonin diintaada cid kale ha usii marin caqiidadaada cid kale ha usii marin mata stacbadtum الnaasa waqad waladatku umuhaatum axraara goormaa dadka adoonsateen waxayba dhasheen ayagoo axraare adi hooyadaa adoo xoray ku dhash soo maaha maskaxdaada xor u noqo diintaada baro manbicii iyo ishii iyo yaaxeentii iyo webigii iyo meeshay kasoo burqanaysay oo ah kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga iyo sida ay salafku u fahmeen intaa ka diin dhigo cid kula cid adiga saad u dhalatoo kale u dhalatay oo 9 bilood ku dhalatay adeer iga barakayso ha ka yeelin iga barakayso maxaa lagaa barakaysaa barakada kitaabka qur-aanka awey barakada sunada nabiga sal lla alay slam barakada waa diinta waa salaada waa soonka waa zakada waa xajka waa taacada waa qur'aanka waa adkaarta taasa baraka wakuka faina mujaalasatahum dadka la fadhigoodu mumridatu lilqalbi qalbigay cudur ku ridaan bu yani cudurkay kaaga ridayeen maxay xanuuni hala fadhiisanin tama bixamdi illaahi wa tawfiiqihi waa dhammaystirmay xamdiga alle sababtiibuu ku dhamaystirmay
annaga awoodeyna maha wa tawfiiqihi iyo waafajinta alle kitaabu lmuctaqadi الصaxiixi alwaajib calى kuli muslim ictiqaad sheekh wuxuu yidhi as'al اllaha tacaala allaha sareeya waxaan weydiisanaya an yajcalahu inuu ka yeelo kitaabkan asaga ah liwajhi اlkariimi mid asaga dartii loola jeedo ikhlaas yacni kitaabkan annagana waxaan weydiisanaynaa allah tabaaraka wa tacaala kitaabkani inuu alla nooga dhigo tabaaraka wa tacaala dartii kuwa wax u gaadhsiiyey khaalisan liwajhi اlkariimi khaalisan walisunati nabiyihi muxamed sal ly slama waxaa kaloon allaha sareeya weydiisanayaa inuu ka dhiga kitaabkani lisunati nabiyihi muxammadin muwaafiqa mid sunada nabiga waafaqsan saasaan ilahay ka barya wa an yanfaca bihi cumuuma almuslimiin muslimiinta jamiica almuslimiina cumuumkaas wa an yanfaca bihi cumuuma almuslimiin ay jamiica almuslimiin ilahay waxaan weydiisanayaa inuu muslimiinta o dhan ku anfaco ilahayna waan ku anfacay runtii kitaab barakaysan wey wa salى allahu waslama calى nabiyina muxamed sal ly slam naxariisiyo nabadgelye allaha yeelo calى nabiyina muxamedin nabigeeni muxamed sal ly slam wa calى ali beytihi qaraabadii nabiga alaطhaari ee wan wanaagsanaa ilaahay nabadgeliye naxariis allaha yeelo wa صaxbihi اlakhyaar iyo saxaabadiisii la doortaye ilaahay uu u dooray nebi moxamed inay saxaabo u noqdaan iyo waman tabicahum cidda ku raacday saxaabada biixsaanin wanaag ku raacay ilaa ywmi اddiin ay ilaa ywmi اlqiyaama allah waxaa weydiisanaya tabaaraka wa tacaala inuu kitaabkan uu nagu anfaco sheekha kitaabkan noo qoray ee juhdi kusoo bixiyeyna caawa wuu naga hooseeyaayo ilaahay inuu janat lfirdows abaalkiisa u ka dhigo qabrigiisana ilaahay ogu nuuriyo su-aasha munkar iyo nakiira ilaahay ugu dhib yareeyo sadaqa jaariyana ilaahay uu oga dhigo annagana kuwa ku intifaaca gadaasha ilaahay uu naga dhigo wixii aan asiibay ayuha alaxiba mahad taasoo dhan alle keligiiba iska leh maxaa yeelay waafajinta asagaa leh wixii aan gefay ama aan khalday ama cilmi la-aan ii geysay ama carabku iga dafay ama deg deg uu keenayna ilaah iyo rasuulla beri bay ka yihiin anna beri baan ka ahay cid alla ciddii aragtana way sixi kartaa way u furan tahay way iisoo sheegi kartaa halkaa saasa carabkaaga dhacay halkaa khaladkaasaad u fahamtay qalbi furan baan kusoo dhaweynayaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaan mahad ballaan u celinayaa xamdiga alle kadib walaalaha ka dambeeyey fikirkan asaga ah iyo liqaagan iyo kulankan iyo safarkan maamulka iyo idaarada iyo qeybta dacwada masjidkan khalid bin walid toronto canada toronto ilahay tabaaraka wa tacaala ujuur aan dhammaanaynin inuu ka siiyo hada wabillahi tawfiiq wsali allahuma wslama wbaraka calى muxamedi wعalى alihi وصaxaabati ajmaciin wasalaamu عalaykum wraxmat اllahi وbarakatu